way walaahobayaan oo iska daba ka wareegayaan marba rasuul baa loo imanaya Muusa loo imanaya Ciisa loo imanaya Nabi Ibrahim baa loo imanaya Nabi Nuux baa loo imanaya waxna la qabo xaaladu waa adagta nabi waliba waa cudur daaranaya rasuulka loo imanaya sallallahu alayhi wasallam markaas uu oranaya ana laha ana maanta iskale inaan idinka erga qaado markaas uu nabigu tegaya markaas wuxuu imanaya arshiga Ilaahay hoostiisa markaas uu ku sujuudaya sujuud dheer markaas uu nabigu wuxuu tilmaamay alayhi salatu wasalaam du'a aanan waligay ku ducaysan iyo amaan aanan waligay Ilaahay hore u amaanin ba Ilaahay ii furaya markaasan Ilaahay amaanaya oo Allah baryaya markaasa Ilaahay la hadlaya Muhammad irfa' ra'sak Muhammadow kor u qaad madax toos wasal tu'ta weydiiso waxa doonto waa ku siinaya weydiiso maanta washfa' tushaffa' erga i weydiiso ergadaada waan aqbalaya markaas nabiga waxa loo fasaxaya shafaacatul uzma shafaacadi weyneed inuu qaado salawaatullaahi wa salaamu alayhi kuwi gala shafaacadiisa Ilaahay inagu daro subhanahu wa ta'ala malaa'ikti baa imanaysa makhluuqi oo dhan ayaa isweer laga qabanaya wal malaa'ikatu waji'a yawma idin waja'a rabbuka wal malaa'ikatu saffan saffa malaa'ikti baa imanaysa markaasa makhluuqiyo toban bay xagga sare dusha ah bay sida u soo degayaano way isku hareereynayaan jahannamana waa la keenaya iyadoo halamsanaysa oo qaylada ka baxaysa iyo jibaadka iyo hugunka ka baxaya aad yaabayso marka jahannama la soo wado 70000 hoggaan bay leedahay halkii hoggaan ama xarig oo kaliya 70000 oo malag baa sida u jiidayo haya markay bidhaan fog gaaladii ka aragto iyo kuwii falalowga ahaa iyo munaafiqiintii ayay jannadii naartu bilaabaysaa inay markaa hadasho bay bilaabaysaa maxay oranaysaa idaa ra'athum min makaanin baciidin sami'u laha tagayyudan wa zafira meel fog markay ka aragto ayay waxay ku siganaysaa inay dildilaacdo ba Ilaahay carada iyo ciilkay u qabto way soo dhawaanaysaa ilaya ya kaafir ilaya ya munaafiq ilaya ya saahir ilaya ya taariku salah ana kuleh maanta ku cunaya taariku salaadkiyo saahirkiyo ana maanta ku cunaya gaalkiyo ana maanta ku cunaya munaafiqiyo maanta aniga ku cunaya saasay leedahay naarti baa la keenay 70000 oo malag baa sida 70000 oo hoggaan bay leedahay hoggaan walba 70000 malaayiin malaa'iga baa saa u jiidaysa markaas Ilaahay saa ugu guraya subhanahu wa ta'ala marka lagu guro ba Allah wuxuu oranayaa yawma naqulu li jahannama hal imtalat jahannama la hadlaya ma buuxsantay jahannamo ma buuxsantay hal min mazid ilaahu wax kororsiima ama haysa wali dhowr khanfara badan baa banaan wax ziyaada ilaahu ma haysa ma ujeeda arin adag oo khatar ah ayaa jirta oo qofku la rabo inuu u tabaabushaysto oo maalinta yawmul qiyaamo u dadaalo sidoo Ilaahay ugu dhawaan la subhanahu wa ta'ala waxa kamida xisaabti baa la isugu imanaya markaas dadkii la xisaabaya rabbigood baa la horkeen doonaa acmaashoodii qof walba cimrigiisa la weydiin doonaa cimrigaan ku siiyay adigoo inta soo sanadood jira ayaan adduunka ka soo qaaday maxaad cimrigaagi kaga faa'iideysatay dhalinyaranimadaadii ka waran maxaa iligan ka riday ilaa hada waa aragto ilkii qaad bayna ka riday Soomaa ilku waa meesha ugu adag qofka bani aadamka jirkiisu waa lafaha adag bal bahalka saa u burburiyay urku jirta maxaad u malaynaysaa kilihi iyo beerkii iyo mindhicirad iyo calooshii uuski ka war inta waxa ka sii dheer dhibaatada kale ku geysanay ragga qaadka cunay barinsaday ee ku caan baxay islaamuhu waa ka cawdeen de ninkii laba dumar mi isku qabi kara dumar qaad la yiraahdo iyo islaam halka fadhido khayr qabta ah mi isku qabi kara iskuma qabi karadi ma arabtu waxay tiraahdaa man rakiba farasayn shaqa dubura laba faras qofka intuu fuulo waan cayrinaya yiraahda dabada kala dilaacda yiraahdeen miyad fuuli karaysa laba faras oo meeyde midun baad ku hadhaysaa Soomaa ama tan aad u go'aysaa islaantan de halka lagu sito ee qaadka la yiraahdo ee marka la qaato xitaa sida loo jecel yahay banaanka lama keenayo alkaas la gelinaya garanka waa laga hoosaysiinaya islaanta aad laabta gelinayso ama tan aad u go'aysaa
caruurtii iyo ubadkii maba xusuusanaya ninkan qaadka cunaya dadku ma kudkuda ciiday cunayaan islaanta iyo ubadku markuu qaadkiisa iyo qadadiisa iyo cadkiisa meel saariyo shahaysa iyo burburintiisa ayuu xusuusanayaa uu odhanayaa 20 kaalaanka bal caruurtii xugu wax waxee ama 30 kaas odhanaya ma ujeeda waxa la weydiin doona dhalinyarinimadiisii iyo cimrigiisii iyo maal adduunka wixii soo galay xaguu ka keenay xaguu ku bixiyay waxa soo dhan baa la weydiin doona ishan maxaa ka riday iligan maxaa riday maxaa gacantan ka jabiyay dakharkan maxaa ku yeelay adigoo wanaagsan oo qurux badan baan ku abuuray yaa iga ka dambeeyay kiilku qaad ka laasteen ilaahay awsan hawaday iyo jabisiyo ugu waday kii kale magaca muxuu harar miyaha ugu waday ilkii tage waxba kama hayo dakharkan maxaa ku yeelay maqsinkii ma laba isku jiirnay budba madaxa la igu jeexay maxaa lacagtan xagaad ka keentay mid baan ka qaato laaluush way kan way xagaad ka keentay su'aashaas ay iman doonto waa lagu weydiin doonaa ballankii aan kula galay iiga waran alla soo kuma oran alastu bi rabbikum qaaluu bala ba tirsama maxaad ii caabudi weydi maxaad iigu tukan weydi maxaad sakada u bixin weydi maxaad u soomi weydi maxaad u zinaysatay maxaad wax u xaday maxaad beenta u sheegtay maxaad kaada isaga dhaqi weydi oo si fiican aan ka keenay nijaasta aan ka soo saaray maxaad intaad gidaarada istaagto suusada intaad furto nay uga siinaysaa dharkaaga iyo jirkaaga ugu daadinaysaa su'aal baa kugu soo baxaysa dhagahaagi ka waran maxaad ku dhageysatay indhaha maxaad ku daawatay qalbiga maxaad samaysay su'aal adag baa imanaysa kii kaafirka iyo gaalka aha dadka oo tuban baa la wareysanaya ilaahay wuxuu rabaa inuu fadeexeeyo oo sharafta ka qaado kii muuminkii wanaagsana waxna ka dhaceen khalada laakiin allana caabudu jiray wanaagsana si gaara ilaahay uu faqaya war kaale baa la oranaya si gaara ilaahay uu la faqaya maalinta waxa ma samaysay ha halka ma ku samaysay ha sida ma u samaysay ha wax kasta uu qiraya gaar weeye cid maqlaysa oo arkaysa ma jirto way isaga ilaahay kaliya subhanahu wa ta'ala adduunyada ana ku asturay maantana waa ku saamaxay baa Allah oranaya subhanahu wa ta'ala satartuha alayka fi dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm ما أنت نواكو سامحي والورمية كوي قال ذي المنافقين ألا لعنة الله على الظالمين حساب تاساد دنبيسة ولس حسابي دونا ما أنت يوم القيامة ني ولا واحد وديار ستاد لهذا هدي ديق حقي ستهاي قفك وحال هدي أي تهاي عبادتنا الصلاة أو الرئيسة وحي كلنا ديق أو الرئية وحلا يسك حسابيه وحا إيمان دونتا صحفتي ديوان دي أعماش بني آدم كاللقو قريي أيا إيمان دونتا صحفتaasaa la keeni doonaa markaas la soo dhigi doonaa kitaabkii laga qoray wuxuu qofku oran doonaa ma li hada alkitab la yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha wa ma hay diiwaankan aan waxba ka tagin wax yar iyo wax weyn maalintan qaan gaaray ilaa maanta waa lagu qoray waa sidee ayuu oran doonaa qofkii muuminka ahaa midigta ilaahay uga dhiibi doonaa فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي مؤمن كمركا ميدتا laga siiyo alla kitaabkayga miidta laga siiyay war arka farxada somaydina arag qofka jaamacada ka qalinjiyo marka shahaada la siiyo inuu sawir iskala daalo oo mariyo kala janjeero si xidho oo dadku dhamaanta u yiraahdo waa maalintaydii somaydina arag farxsan yahay shahaada markuu qaato تآخرها شهادة كوينة كتاب كتاب مركا ميدي تولو قديبه فرحدة ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية أسأل الله يجعلنا منهم ميدي تولو قديبه كي قال كاسوما وما من أوتي كتابه بشماله بيدي تولو قديبه أما دبر يا لورنا كقبصو على وش أنتو قعنت دحقل يا أرحدة كدسيو هل كاسو كسو قبنية يا ليتني لم أوت كتابيه الله كتاب كي إن الله يسيين باي وعنيت ولا ما أدري ما حسابي حساب وحيتين نوقادين يا ما أنت يقدر عيد ما أنت محنكو هذا لو تمر يوكل يا يقدر أيوة رندونا وحاكو قفل إنه كلية ومال أنت هذي جسها لهيد هذي سيون إذا أدون كهرديدي أيا إلهي وقصاصي دونا ويقوين دونا بل بني آدم كم حضم الناس حالد وأدقته الله إنه قرقاره ميزان كبا إيمان دونه ما أنت يوم القيامة أعماش بني آدم كان ميزامية ديوان كلا قصوا قرين ولا ميزامية قفكينا ميزانك أي الله صاري دونا سحل دير بأله ميزامية سبحانه وتعالى ما أنت يوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ميزانك عدالة بالله دونا
dadkii waxyaabaha miisaanka cusleeya waxaa ka mid ah qur-aanka akhrintiisa waxaa ka mid ah salaada waqtigeedu aad tukato waxaa ka mid ah sunnayaasha oo aad badsato waxaa ka mid ah dikriga ilaahay laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah waxaa ka mid ah subxaana allahi wabixamdih subxaana allahi alcadiim waxaa ka mid ah astaqfiru allah subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar waxaa ka mid ah laa xawla walaa quwata ila billah adkaarta inaad meeshaa dambe aakhira war jiraa isu weel dhigo waxaa ka mid ah waxyaabaha iman doona xawdka nebiga laga cabayaa qoraxdu markay kulaato waa la haraadaya xaaladdu waa adag tahay xawdka nebigu sal allahu alayhi wasallam afartiisa koone barkadaasi way isla eg tahay biyaha ku jira caanaha way ka cad yihiin malabkana way ka macaan yihiin buu nebigu sal allahu alayhi wasallam koobabka lagu cabayo tiradoodu xidigahay tira la eg yihiin buu nebigu alayhi salaatu wasalaam muuminiinta intii rasuulka raacday ee bidcada iska ilaalisay bidca waxa la yiraahdaa waxa nebigu ogeyn qofkii sameeya ayaa ka cabi doona صلوات الله وسلامه عليه قفكي مرعبا ولقي ديبو هرادي ماي إن لكل نبي حوضا نبي ولي بدر لقعبو أيو ليه يبو نبي يقول صلوات الله وسلامه عليه لكن حوض كيغا هوين بو نبي يقول صلى الله عليه وسلم وبقى شنذا كوثر أيا قعن كيسو كي مادا هل كاسو كبيوبا أسأل الله يجعلنا ممن يشربون حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم